بسم الله الرحمن الرحيم كلا وعن داوديال كسو دوادا برنامجka gebi ahaantiis waxaynu ku soo qaadanaynaa suurtagal ma tahay in iska caabinta Falastiiniinta hubka laga dhigo adduunyada horay ma loogu soo guuleystay in hubka laga dhigo ciidan aan laga guuleysan maxaase laga ogyahay ururada hubeysan ee dawladaha ka soo horjeeda ha noqdeen kuwa halganka u dagaalamaya kuwa gooni goosadka iyo kuwa kale ee xuquuqdooda raadinaya in hubka laga dhigay maxaynu ka ognahay taariikhda caynkaasiya iyadoo arrimahan ay ku soo aadayaan xilli Israa'iil ku adkaysanayso in iska caabinta Falastiiniinta hubka ay dhigaan taasi oo qayb ka ah qorshaha Mareykanka ee lagu sifeeyay in dagaal la'aan Israa'iil ay ku gaartay ujeedooyinka ay kala hayd dagaal aysan ku guuleysan 24 bilood laakiin arrintaasi ma suurtagali doontaa horese ma u dhacday barnaamijkan ayaan ku faahfaahin doonaa محمد عدي ومعلومات كان سوء رياي يا قدك كجرا محمد warbixinta maxay ku bilaabanaysaa warbixinta ayaa waxa ku bilaabanaysaa arintan la xiriirta hubka dhigista ururka Xamaas iyo ururada kale iska caabinta wadada marinka Gaza ayaa hadda waxay noqotay arinta ugu xasaasisan mowduuca aadka la isugu hasaysto oo labadaba soo wajahaya Israa'iil iyo dawladaha Israa'iil taageeraya gaar ahaan dawladda Mareykanka arintan ayaa hadda waxa ay u baahan tahay ka fiirsasho degdeg ah kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu meel mariyay qaraar uu soo jeedisay dawladda Mareykanka oo lagu sharaxayo tillaabooyinka lagu soo afjarayo colaadda marinka Gaza ka jirta Israa'iil iyo u dhaxaysa Falastiiniinta waxaana qaraarka xudan dhaxaad u ah su'aasha la xiriirta Gaza nidaamka la rabo in hubka looga dhigo haddii hubka laga dhigaba iyo qaabka siyaasadeed iyo qaanuun ahaan sidee waxaan meel marka noqon karaan mid kamida arrimaha ugu muhiimsan ayaa waxa ah hindisaha dawladda Mareykanka ay soo jeedisay ee ah in la abuuro nidaam caalami ah oo ciidan oo xasiliya marinka Gaza oo talis midaysan leh ciidankaasi ayaa hawshiisa waxay noqon doontaa sidii hubka uga dhigi lahaayeen ururada hubeysan ee Falastiiniinta una difaac lahayn dadka rayidka isla markaasna loo tababar lahaa ciidamo booliis ah iyadoo iskaashi lagala yeelanayo dalalka Masar iyo Israa'iil ciidankaasi ayaa waxa ay noqonayaan heerkooda kuwa aanan marka la fiiriyo ciidamada faragelinta caalamiga aan hore loo arag waxayna faragelin ku samayn doonaan arrimaha gudaha ee marinka Gaza arrintaasna waxa leeyahay saameyn xoog leh ayay ku yeelanaysaa qadiyadda qarameed ee Falastiiniyiinta madax banaanidooda iyo amnigooda waa gartay muxuu yahay marka mowqifka Israa'iil ee arrintan ku wajahan Israa'iil ayaa dhowr goor ku celcelisay in hubka laga dhigo ururada hubeysan waxaana waajib ah in shuruudaasi la meel mariyo waxaana ahayd hadafkii ay muddo badan ku taamaysay ururka Xamaas ayaa ku gacan sayray dalabaadkaasi wuxuuna ku nuuxnuuxsanayaa in Falastiiniintu ay xaq u leeyihiin in ay hubeysnaadaan ilaa ay inta laga gaarayo madax banaani dawlad awood u leh dadka Falastiiniintu inay difaacdo ururka Xamaas ayaa u arka hubka dhigista in ay xudun u tahay horumar siyaasadeed oo horseedaya madax banaanida dadka Falastiiniinta iyo qaran ahaan inay Falastiiniintu u jiraan waxayna ururka Xamaas ku doodayaan hubka dhigista waxa ay noqonaysaa mid Falastiiniinta ka dhigi doonta mid sacaboolay ah oo ayna isdifaaci kareynin marka la fiiriyo awoodda military Israa'iil ee weyn iyo xaaladda jirta marka la fiiriyo qawaaniinta caalamiga ayaa waxay aqoonsan yihiin ururka Xamaas in ay xaq u leeyihiin in ay isdifaacaan weli in la meel mariyo arrintaasi dhulka laga meel mariyana waxay dabool ka qaadaysaa in iska hormaad badan uu ka jiro qaanuunka caalamiga wuxuu qorayo Xamaas ay haysato iyo waxa Mareykanka iyo xulafadiisa ay rabaan hubka Falastiiniyiinta ayaa hadda waxaa laga dhigay mid dembi ah bartilmaameed laga dhiganayo halka hubka Israa'iil oo ah dawlad xoog leh tiknoolajiyad ahaanna aad u horumarsan marka la fiiriyo dalalka caalamka ayaa weli waxa ay helaysaa hub ay isku difaacdo iyo taageero military
halka laba wajiilnimadaasi ay aas u tahay in la cambaareeyo dadka Falastiiniyiinta ah isla markaasna dadaal la wado caalami ah oo la rabo hubka in looga dhigo arrintaasna suuragalnimadeeda ayaa la isku haystaa. waa gartay marka macnaheedu waxa weeyaan qawaaniinta oo laba dhinac u kala shaqaynaysa halkaas inoo faahfaahay qoraaga wuxuu ula jeedo. marka la fiiriyo qawaaniinta Geneva 1977 waxa uu hoosta ka xariiqayaa in ururada iska caabinta wada Falastiiniyiinta ay xaq u leeyihiin in ay halgamaan iskana caabiyaan dalka dhulkooda xooga ku haysta. cilmi baarayaasha uu ka mid yahay Adam Roberts ayaa hoosta ka xariiqaya cilmi baaris uu sameeyey in la iska caabiyo ciidan military ay tahay arrin qaanuuni ah oo la aqoonsan yahay sababtoo ah cid damaanad qaadi karta ma jirta baa leeyahay difaacidda dadka Falastiiniyiinta ah halka siyaasad ahaan iyo amni ahaan danahooda dowladaha waaweyn ee hadda noqotay in ay ka hor imaanayso qawaaniinta caalamiga ah. markan dowladda Mareykanka ayaa ka hor imaanaysa qawaaniinta caalamiga ah oo dad xorriyadooda raadinaya ayay rabtaa inay hubka ka dhigto halka wadankii caburinayay ay rabto inuu hubkiisa qaanuuni ahaado. arrintaasna Mareykanku waxay si orakaca isaga indha tirayaan qawaaniinta caalamiga oo markay rabaan ayay qawaaniinta isticmaalayaan sida qoraagan uu sheegayo. farqa u dhaxeeya mabaadi'da qaanuunka iyo tallaabooyinka siyaasadeed ayaa waxa ay muujinaysaa in sida uu qorayo hay-adda sida ay qorayso hay-adda Laanqeyrta Cas ICRC warbixin la xiriirta hubka dhigista iyo sida hubka loo xakameeyo. tan kale oo ayadana ay ku nuuxnuuxsanayso hay-adda Laanqeyrta Cas waxa weeye hubka dhigista waxaa waajiba in la raaco mabaadi'da bini'aadanimo waxaana waajib ah in lagu xiriiriyo farsamo lagu difaacayo dadka rayidka ah isla markaasna waa in la meel mariyaa xasilooni socon karaysa dagaalka kadib. waxayna hay-adda Laanqeyrta Cas ay ka digaysaa hubka dhigis waxaa waajiba bay leedahay in lagu meel mariyo mabaadi' la yaqaano laakiin waxaana marnaba waajib ahayn in la meel mariyo iyadoo loo adeegsanayo aalad ahaan la rabo in dhinac gacan lagu siiyo dhinaca kalena lagu qasbo halkii ay ahaan lahayd mid dhexdhexaada la isla xisaabtami karo caalamkana uu sida wax u dhacayaan uu kormeeri karo iyadoo qawaaniinta la raacayo. waa gartay marka la eego hubka iska caabinta iyo hubka Israa'iil qoraaga wuxuu leeyahay arrintaas waxa u dhaxaysa ama ka muuqata laba wajiilinimo muxuu ula jeedaa. sida ay ku xusan macluumaadka ay qorayso hay-adda nabadda caalamiga cilmi baarista ku samaysa la yiraahdo SIPRI ee laga leeyahay wadanka Sweden fadhigiisuna yahay magaalada Stockholm. Israa'iil ayaa lagu sheegaa in ciidamada caalamka ay ka tahay wadanka 15aad hubka soo dhoofsada intii u dhaxaysay 2020 ilaa 2024 xilligaas intii lagu jiray hubka caalamka ay soo dhoofsatay 2% ayaa lagu sheegay. dowladaha ay ka soo dhoofsatana 66% ku dhawaad dowladda Mareykanka ayaa hubka siisay ama ay u soo dhoofisay wadanka Israa'iil halka Jarmalka oo 33% asna keenay. tirooyinkan ayaa waxa ay muujinayaan xaddiga caalamiga ah ay ciidanka Israa'iil ka helaan wadamada Mareykanka iyo reer galbeedka walina awoodooda military ayay sii balaaranayaan. taa haddii la barbar dhigo ururada Falastiiniyiinta iska caabinta wada ayaa waxaa laga dalbanayaa in ay hubka gabi ahaanba dhigaan marka laga gudbo in ay ku shaqeynayaan bay'ad aynan jirin ciidan rasmi ah oo ay Falastiiniyiintu leeyihiin oo difaacay dadka Falastiiniyiinta iyo kaabayaal military. arrintaas aan isu dheelitirnayn ayaa waxay muujinaysaa in ay jirto isu dheelitirnaan labada dhinac ka jirta. dhinacii xooga badnaa ayaa weli hub loo ogolaanaya oo hub khatara loo ansixinayaa in la siiyo halka dhinacii tabarta yaraa ee ururka Xamaas iyo ururada iska caabinta wadana cadaadis lagu saarayo inay hubkooda iyo qaabkay isku difaaci lahaayeen laga qaado. arrintaasina waxa weeye laba wajilayn aad u weyn oo qawaaniinta caalamiga ka soo horjeeda.
waa gartay marka laba wajiileyntaas maxay yihiin marka hababka lagu wajihi karaa nidaam caalami ah oo madax bannaan ayaa la rabaa in uu la socdo hubka kusoo qulqulaya dhinacyadan lana xaqiiqsado in uu meelmar noqdo heshiiska ganacsiga hubka iyo in la difaaco dadka rayidka ah la xaqiiqsadana haddii hub iska dhigis ay dhacayso in dadka falastiiniyiinta ayna dayacmin oo aan laga qaadin qaabkii ay isku difaaci lahaayeen qariidada siyaasadeed isu dheelitirka awoodda waxay u baahan tahay in la xaqiiqsado isla xisaabtan halkii shuruudo dhinac u janjeera lagu soo rogi lahaa dhinaca falastiiniyiinta oo ah dhinacii la caburinayay qawaaniinta caalamiga ma noqon karaan ayaa leeyahay in wax walba hal xal loo raadiyo caalamka nidaamka hubska dhigista la yaqaano waxaa soo maray adduunka markii Japan iyo Jarmalka dagaalka labada adduunka ay ku jabeen ayaa la soo xigtaa marka wada xaajood laga yeelanayo xagga hubska dhigista si kastoo ay tahay tusaalayaashaas marinka Gaza ma quseeyo sababtoo ah xaalad gaar ah oo taariikheed ayay ahayd oo siyaasadeed ayay ahayd iyo juqraafi siyaasadeedkii markaas jiray ayay la jaanqaadaysay sababtoo ah Jarmalka iyo Japan labadaba dib u qaabeen ayaa lagu sameeyey dowladnimadooda ciidamo ajnabi ayaana ku sameeyey waxaana ay noqotay in la xadido madax banaanidooda iyo hubka ay qaadan kareen si wanaagsan si loogu faano saameynta ay hubka dhigista yeelan karto ayaa macno kala sameynaysa macnayaal kala duwan sameynaysa aqoon-yahanada waxay u kala qaybiyaan khibradda caalamka soo martay inay tahay 3 qaybood saddexdaas qayboodna waxa weeye wax ka baxsan ayaa hadda laga rabaa marinka Gaza waa gartay marka wadiiqooyinkaas haddaynu eegno wadiiqada koowaad aynu ka eegno hubka dhigista dibadda laga maamulayo meelaha ay ka dhacday hubka dhigistan waxa weeye ama wejiga koowaad ama qaabka koowaad waxa weeye taariikhda la soo xigto in awoodo dibadda ka yimid ay hubka dhigista soo rogaan kadib markii military ahaan looga adkaaday dhinacyadii dagaalamayay Jarmalka oo kale markii uu ku jabay dagaalka labada adduunka waxaa la bilaabay xisbiga Naaziga in la kala diro iyo hay'adihiisa dawliga ahaa dib u qaabeen lagu sameeyo nidaamkii siyaasadeed oo ay dalalkii dagaalka ku guuleystay ay kor joogto ka yihiin Japan marka la fiiriyo waxaa lagu qasbay in dastuurkeeda ay bedesho oo aynan ku xusto inaynan dagaal wadankeeda ka baxsan inay qaadi kareen mamnuucna ay ka ahayd inay ciidan military ah oo weerar qaadi kara samaysto Iraq wixii ka dambeeyay 2003 ayaa iyadana hubka dhigistii Mareykanka uu soo rogay natiijadu waxay noqotay xasilooni darro baahda iyo inay burburaan nidaamkii go'aanka lagu qaadanaya ee qarameed ee wadanka Iraq wejigaasi waa wejiga koowaad ee adduunka la ogsoon yahay waa gartay wejiga labaad ama wadiiqada labaad waa marka xorriyad la helo iyadoo maxaynu ka ognahay hubka dhigis ayaa waxay daba gashaa baa leeyahay markii xorriyad taama ee qaran ay timaado wadanka Algeria ayaa dagaalyahanadiisa la kala diray kadib markii wadanka Algeria uu wadanka Faransiiska xornimadiisa ka qaatay 1962 kadib markii uu Faransiisku dilay in ka badan 1 milyan oo qof waqooyiga Ireland jabhadii ka dagaalamaysay Sinn Féin ayaa hubka laga dhigay waxayna qayb ka ahay heshiis siyaasadeed oo lagu abuurayay hay'ado matala dadka Catholiga ah ee ka soo horjeeday dadkii awoodda lahaa oo dowladda Britain ay taageeraysay wadanka Koonfur Afrika dagaalkii hubaysnaa wuu istaagay oo kaliya markii la kala diray xukuumaddii midabta koorka ahayd ee cadaanka tirada ay ka talinayeen waxaana la abuuray dowlad dimuqraadi ah xaaladahaasi waxa ay muujinayaan hubka iska dhigista waa guuleysatay sababta u guuleysatana waxay ahayd waxaa la socday in ay madax bannaani timid ma aha mid awoodo dibadda ah ay ku soo rogeen Koonfur Afrika ama maxaan ku idhaahdaa Ciraaq sababtoo ah waxay noqotay
mid ku timid isfahan. waayahay qaabka saddexaadna waa qaabka loo yaqaan hubka dhigista oo xal farsamo ahaan loo maro taa muxuu ku faahfaahayey qabiirku wadiiqada saddexaad ayaa tilmaamaysa in hubka dhigista siyaasad la-aan lagu shaqeeyo inay soo saareyso in ay keento nugeyl ku yimaada hay-adihii dowliga ahaa. waddanka Angola oo kale markii hubka dhigista la sameeyey waxaa burburay ama kala daatay nidaamkii dowliga ahaa, caqabad weyn ay noqotay. Namibia sidoo kale ayaa qayb ahaan waxaa burburay hay-adihii dowliga ahaa sababtoo ah heshiis wax ku oola oo la isla meel dhigama jirin. Bosnia oo sidoo kale ayaa amni xumo weyn timid markii ay qaabkii siyaasadeed ee jiray meesha laga saaray. waxaana muuqata in ay keenayso midaasi khatar ah in burbur iyo inay keento iyo fawdo aan lagu talagelin. waa gartay xaaladaha marka Falastiiniinta aanu imaano daanta galbeed daraasad la sameeyey oo xarunta dhexe ee siyaasadda ee Falastiiniinta iyo arrimaha bulshada ay sameysay 2025 ayaa ku nuuxnuuxsatay hubka marka ay timaado amniga maamulka Falastiiniinta ciidamadiisa in lagu xiriirinayo inuu iskaashi la yeesho Israa'iil kala yeesho waxayna aad hoos u dhigtay hay-adihii dowliga ah ee Falastiiniintu lahaayeen. araha laga ururiyay dadka Falastiiniinta ayaa muujinaysa in aynan aaminsanayn qaabka ay wax u socdaan. 98% dadka Falastiiniinta waa ka soo horjeedaan in ciidamo dibadda ka yimid ay hub ka dhigaan ururka Xamaas. marka laga gudbo arrimahani maamulka Falastiiniinta ayaa soo dhaweeyey xeerkii qaraarkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee tirtigiisu ahaa 28/3 ee dhowaan la gudbiyey. waxayna sheegeen inay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan Mareykanka iyo nidaamka caalamiga ah ee la abuurayo. arrimahaasina waxa weeye waa dhanka Falastiiniinta laakiin ururada iska caabinta wada waa ka soo horjeedaan arrintan. ururada marka maxay ku tilmaameen qaraarkii ugu dambeeyay ka soo baxay qaramada midoobay dhowaan? ururada iska caabinta wada ee Falastiiniinta ee Xamaas ugu weyn tahay waa ku gacan seereen qaraarkii qaramada midoobay tirtigiisu ahaa 28/3 oo 13 dal ay ansixiyeen. Ruushka iyo Shiinahana ay ka aamuseen. waxaan lagu tilmaamay qaraarkaas inuu yahay qaab maxnad lagu gelinayo maamulka Gaza, maxmiyad lagu gelinayo oo maamul ajnabi ah uu ka talinayo marinka Gaza. waxayna ku adkeysanayaan ururada hubaysan ee iska caabinta wada inay xaq u leeyihiin inay iska caabiyaan Israa'iil isdifaacaana. arrintaasna waxay ku xusan tahay qawaaniinta caalamiga ah. hubkoodana uu yahay hub la isaga caabinayo, muhiimna ay tahay inay xuquuqdooda ku ilaashadaan. daraasad ay sameysay xarunta nabadda ee Oslo cilmi baarista sameysa xagga nabadda ah ayaa ku nuuxnuuxsanaysa in hubka dhigista lagu soo rogayo dadka Falastiiniinta ah iyadoo aanan mashruuc siyaasadeed la keenin oo horseedi kara in ay hay-adihii daciif noqonayaan, amnigana khatar ay ku keenayso iyo amniga inuu burburo. waana waxa hadda ka socda oo laga digayo in Falastiin ay ka dhacaan oo la rabo in hubka laga dhigo. waxaan lagu soo gabagabeeyey waxaa cad hubka dhigista ma noqon karto mid xal siyaasadeed keenta. waxaa loo baahan yahay xasilooni u baahan qaab siyaasadeed oo damaanad qaadaya madax banaanida, difaacidda xuquuqda aasaasiga ee dadka Falastiiniyiinta ah iyo in la isku daro hubka dhigista iyo in la abuuro hay-ado qaran oo ay Falastiiniyiintu leeyihiin oo loo qaateen oo ay dadku taageeri karaan. waayahay maxamed haddii intaas kaga gudubno warbixinta qoraagu meelo kala duwan ayuu macluumaad kala duwan ka soo bixiyey gaar ahaan sidii wax u dhaceen meelo badan oo caalamka ka mid ah. arrintan Falastiiniinta marka haddayna u nimaadno waxaa muuqata in aan lagala tashan xoogga iska caabinta Falastiiniinta qorshahan Mareykanka uu wado gaar ahaan Mareykanka oo lagu tilmaamayo mid Israa'iil u raadinaya inay hesho wixii dagaalka ay ku weyday. marka maxay ku dambeyn kartaa arrintan maxamed? su-aashaas waa su-aal muhiim ah oo xasaasi ah. marka ugu horeysa
maraykanka ma mooga waxa uu samaynayo waxa weeye maraykanka iyo israa'iil waxaa ka go'an awoodan aanan lagu xisaabtamin oo ciidanka israa'iil jilbaha u dhigtay ayaa waxaa la rabaa ayadoo oo aanan nidaamyadii caalamiga ahaa iyo qawaaniinta caalamiga ahaa inta laga leexdo in la humbaaleeyo oo wax la isku dubarrito ayadoo ay ku jiraan dalal aan banaanka soo istaagayn oo waxaan wax ka karinaya waxaa muuqata sida khabirada hadal ku dhigayaan in falastiiniyiinta ayna waxaan u cuntamaynin waxayna noqonaysaa sida dadka qaar ay hadal ku dhigayaan in mashruucan uu fashilmi doono fashilkiisa ma ahaan doono kaliya mid maraykanka ku kooban waxa uu fashilin doonaa dowlada carbeed ee mashruucan si qarsoodi u taageeraya in ururka xamaas hubka laga dhigo ururka xamaas asxaan meesha kuma joogto 24 bilood ayaa loo geystay xasuuq baahi silcin haddana waxaa muuqata in ay u badan tahay inuu dagaalka soo noqdo waxaana la isbarbar dhigaya ciidamada wadamada Kenya haddii dowladdii awoodda lahayd oo dowladdii 15aad caalamka ka ahayd ciidankeeda ay meesha ku jabeen ciidanka u bareeri kara inay hubka ka dhigaan haddii maraykanku uu yiri ciidankayga aniga meesha geyn maayo britain ay tiri aniga ciidankayga meesha ma geynayo wadamadii Yurub ay ka maagayaan cidda ku dhacda inay ciidan geyso oo isku daydo inay ururka xamaas hubka dhigto waayo way su'aasha la isweydiinayo tan kale oo ayadana aan meesha ka maqnayn waxa weeye waxaa laga yaabaa arrintani inay keento fashil ku yimaada maadaama arrintan hay-addii qaramadii midoobana lagala cararay oo laga dhigay arrin uguba oo aan hore u dhicin maqaalkii hadda aan fiirinana uu si fiican ugu nuxnuuxsaday inay tahay waxaana caalamka hore looga arag waxaa muuqata mashruucani inuu yahay mid tijaabo ah oo isku day ah inuu fashil maayana inay u badan tahay sida khabirada hadal ku dhigayaan waa hagaag waa arki doonaa meesha ku dambaysa maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaashuna ay mahadsan yihiin inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka daawada si aad ula socoto wararkan barnaamijyadan iyo macluumaadkan aynu halkan kasoo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horey aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir aynoo barnaamijka xiga insha allah inta ka horeysa nabadgelyo